ismaqal iyo daawasho wanaagsan waa markaani qodobadii ugu xiisaha badnaa Soomaaliya ee caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dibadbaxyo xoogan oo ka socda Dhuusamareeb, Jubbaland oo xayiraadii ka qaaday golaha wasiirada Soomaaliya, Cabdikariin Guuleed oo war ka soo saaray xiisada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Ahlu Sunna, Barre Hiiraale oo ku baaqay in la taageero Al-Shabaab hal sabab darteed. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan hadduu ay beedmo. Markaani u diyaar garooba qodobadaas oo intaasi ka faahfaahsan. aynu ku bilownay Korneel Barre Aadan Shire Barre Hiiraale oo mar soo noqday wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa waraysi gaar ah waxa uu siiyay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho wuxuu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga, dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo dhibaatada ciidanka Kenya ay ka geystaan dalka Soomaaliya. Barre Hiiraale ayaa si la yaab leh u sheegay in ay muhiim tahay in xilligani gacan la siiyo Al-Shabaab si buu yiri loola dagaalamo ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya. Barre ayaa arintani sabab uga dhigay in dowladda Kenya ay duulaan ku tahay dalka Soomaaliya, awoodda jabin kartana ay tahay dagaalyahanada Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay. Sida oo kale Barre Hiiraale ayaa sheegay in gacmo shisheeye ay faraha kula jiraan arrimaha Soomaaliya isla markaana ay dhib badani ku hayaan qarannimada ummadda Soomaaliyeed. Barre Hiiraale waxa uu sheegay in Soomaaliya ay iminka haysato dhibaato ka badan Al-Shabaab oo ah ciidanka Kenya, sidaas darteed ayaga lagu taageero in ay ka adkaadaan Al-Shabaab. Kenya example ka soo qaad koofidii waxay soo gashatay Afrika. Koofida Afrika waxa loogu geliyaa iyagoo Kismaayo jooga, waxa ay Kismaayo ugu soo duuleen oo intaa u soo mareen oo ay u qabsadeen nacayb iyo abaad ay shabaab u qabaan ma ahayn, dadka annagana ay rabaan ma ahayn, dan ayagu ay leeyihiin weeye. shabaab wax ka weyn baa meesha yaal. kii waxaa la diriraya shabaab laftooda ayagaaba u baahan in la kaalmeeyo. yaa u baahan in la kaalmeeyo kii la diriraya waa Al-Shabaab. golaha wasiirada Jubbaland oo maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay Kismaayo ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin ammaanka, siyaasadda, xiriirka maamulkaasi iyo dowladda federaalka Soomaaliya. kulankani oo shir gudoominayay madaxweynaha dib loo soo doortay ee Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sida oo kale looga soo hadlay go'aankii uu maamulkaasi hore ugu mamnuucay mas'uuliyiinta dowladda, gaar ahaan golaha wasiirada in ay tagaan magaalo xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. wasiirada Jubbaland ayaa shaaciyay in haatan wixii ka dambeeya la qaaday xayiraadii saareed wasiirada Soomaaliya isla markaana ay tagi karaan magaaladaasi. Jubbaland ayaa go'aan ka qaadatay inta aysan dhicin doorashada maamulkaasi oo dhalisay in la doorto ilaa iyo 3 madaxweyne. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in aysan aqoonsaneen natiijadii ka soo baxday doorashooyinkaasi. Lama oga sida ay wax noqon doonaan, waxaana sidoo kale jiray baaq ay ka soo saartay beesha caalamka walow uu ku gacan madaxweyne Axmed Madoobe. madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa si kulul uga hadlay xiisada u dhaxaysa ururka Ahlu Sunna wal Jameeca iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ka taagan gudaha magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galmudug. Cabdikariin Xuseen Guuleed oo la hadlay VOA-da ayaa walaac ka muujiyay ciidanka la geeyay magaaladaasi. waxa uu xusay in uu ka cabsi qabo in dagaal uu ka qarxo halkaasi. sida oo kale wuxuu tilmaamay in haatan Galmudug ay ku socoto fashil iyo burbur sida uu hadalka u dhigay. dowladda dhexe waxaan u soo jeedinayaa arrinkaasi in ay wanaag iyo wada hadal ku maarayso caqliga inuu taliyo. waxaan ka cabsi qabaa in uu yimaado dagaal iyo fadqaalo, ayuu yiri madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug. Guuleed oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri ciidamada lagu soo daabulayo gobolka miyaynan u baahnayn in lagu sugo ammaanka Muqdisho. u malayn maayo maslaxad in ay keenayso Galmudug. ciidan uma baahna, qori uma baahna, waxay u baahan tahay caqli iyo maskax. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo shalay hoggaanka sare ee Ahlu Sunna uu shaaciyay in uu burburay heshiiskii ay kala galeen dowladda federaalka Soomaaliya. shirka Hobyo wuxuu go'aamiyay in shirka nabadda Hobyo la soo gabagabayn doono 5 bisha 9 sanadka 2019 insha Allah ta'ala. qodobka labaad waxaan ku marti qaadaynaa xafladda xiritaanka shirka nabadda Hobyo ee ku aadan 5 bisha 9 sanadka 2019 in ay nagala soo qayb galaan madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed
madaxda maamulka galmudug guddiga dib u heshiisiinta galmudug hoggaanka dhaqanka ee beelaha Soomaaliyeed iyo wakiilada beesha caalamka ee daneeya geedi socodka nabadaynta Soomaaliyeed. magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaa maanta ka socda dibadbaxyo iskugu soo horjeeda oo lagu kala taageerayo dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Ahlusunna. Barnaamijyada ayaa ka socda bartamaha magaalada Dhuusamareeb waxaana mid ka mid ah lagu taageerayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadaalada ay ku bixinayso dhismaha maamulka Galmudug ee bartamaha Soomaaliya. Barnaamijka labaad ayaa waxaa dhigaya dad ka careysan in dowladda Soomaaliya ay ciidan geyso magaalada Dhuusamareeb waxa ay ku dhawaaqayaan erayo ka dhan ah dowladda Soomaaliya iyaga oo taageeraya hadal shalay ka soo baxay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. si taas la mid ah magaalada Dhuusamareeb waxaa ka socda kulamo looga arrimisanayo khilaafka soo kala dhaxgalay hoggaanka Ahlusunna iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee arrimaha maamul u sameynta Galmudug iyo diidmada Ahlusunna ee ciidanka dowladda Soomaaliya ay geysay Dhuusamareeb. xarunta wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ee uu ka degan yahay Dhuusamareeb ayaa inta badani kulamo uga socdeen waxgaradka deegaanka iyo ergooyinka ka qayb galaya shirka dib u heshiisiinta beelaha maamulka Galmudug. sidoo kale xarunta uu ku shaqeeyo madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa kulamo uga socdaan hoggaanka Ahlusunna iyo waxgaradka doonaya in ay xaliyaan khilaafka heerka ugu sarreeya gaaray ee dowladda iyo Ahlusunna.